السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جانالك مركز السود وواضح أدي هذا ومهتنتهين ما أنت هو إسنين وأنا صدح يدبنك بش أفراد أبريل سنة كلابضو كن إيه اللحية اللباتنك وقال كان واحد ربا إن ندي كله وذاقو هذا الكيم دحوين ترامب شلي وكهن جبي إن وقدو من دونه مرينك هرمس إسلام مركانا إيران أيسن وحش داله كدو فين كرين مراكيب لعق بعد أحسين كرتنا أيسن جرين دولة إيران oo dhaqan galay saldhigga dhexe ee Mareykankana waxa ay sheegeen amarka madaxweynaha inay dhaqan gelinayaan haddaba arrintaasi dawladda Iran maxay ka tiri waxa hadalla ayay ka soo saareen mas'uuliyiin kala duwan waan idinla wadaagaya Trump sidoo kale Shiinaha waa uu hanjabay wuxuu yiri haddaan aragno iyagoo hub siinaya Iran canshuur 50% ayaan ku soo rogaynaa sidoo kale qoraal kale oo saaka bartiisa True Social oo ku soo qoray oo mar kale Iran ugu hanjabayna madaxweyne Trump waan idinla wadaagaya Trump meel kasta waa uu ku boodaya hadda waxay isku dhaceen boobka kaniisadda Vaticanka oo xitaa Trump uu yiri ninkaasi nin arinta dambiyada ku fiican ma ahan xalinteeda iyo waliba dagaalada boobkuna wuxuu yiri anigu siyaasi ma ihi maamulka Trumpna kama baqayo markastana waan ka hadli doonaa joojinta dagaalada ka socda caalamka haddaba arrimahaasina waan idinla wadaagaya saaxiibka kaliya ee madaxweyne Trump uu ku lahaa midowga Yurub oo doorashadii dhacday dabayaaqadii toddobaadkan looga guuleystay haddaba ninkaasi muxuu yahay imise sano ayuu wadanka xukumayay saaxiib waxa uu lahaa Putin iyo waliba Trump ninka ka guuleystana waa nin da'yar oo sheegay in xiriirkii midowga Yurub uu la lahaa wadanka Hungary uu dib u soo celin doono intaan guda galin saaxiibayaal madaxweyne Trump in shalay bartiisa True Social-ka uu ku soo qoray in go'doomin buuxda uu gelin doono marinka Hormuz isla markaana labada dhinacba ciidamada badda ee Mareykanka ay ka istaagi doonaan maraakiibta galaysa iyo kuwa ka soo baxayana sidoo kale ay hubin doonaan baaritaanana ay ku sameyn doonaan Trump waxa uu yiri Iran ma doonayno inay baad ka qaado maraakiibta marinka Hormuz maraysa isla markaana Mareykanka lama baadi karo waxa uu sheegay madaxweyne Trump in Iran maraakiibta cidii ay rabtana ay u sii deynayso isla markaana cidii aysan rabin ay u sii deynaynin arrintaasi waxa uu yiri ma ahan mid aan aqbalayna iyo saliidooda cidii ay doonayaan inay ka iibiyaan cidii ay doonayna sidoo kale in aysan ka iibin Trump marka arrinta uu ka duulay waxa ay tahay Iran ilaa iyo markii dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen oo bilowday waxa la leeyahay shidaalkii ugu badnaa ayay iibiyeen marinkaasi shidaalkii marayana sidoo kale waa kuwii joojiyay wadamada ay sheegeen inaysan cadow ahayn isla markaana aan soo raacin wadamada dagaalka kula jirana ay u ogolaanayeen maraakiibtooda inay halkaasi maraan taasina marka waxay cirka ku shareertay sicirkii shidaalka Trump marka hadda wada hadallada markii ay ka socdeen Sabtidii magaalada Islamabad ee wadankaasi Pakistan waxa muuqatay in Mareykanku qorshe kale uu watay isla markaana maraakiibtiisa dagaalka uu geynayay marinka Hormuz meel aan ka fogeyn ama xeebaha wadanka Oman sidaas darteed Trump hal mar ayaa laga warheray shalay uu yiri waan go'doomin doonaa marinka Hormuz isla markaana xitaa maraakiibta in lacagta siisa baada ah wadanka Iran haddii aan soo helno waa la ganaaxi doonaa oo tilaabo sharciya ayaa laga qaadaya arrintaasi haddaba dawladda Iran waa ay ka soo jawaabtay saldhigga dhexe ee Mareykankuna maanta ayuu dhaqan galay si rasmi ah sida ay sheegeen amarkii madaxweynuhu uu soo rogay isla markaana in ay dhaqan galiyeen Trump horta bal hadalkiisa wax yar oo Fox News siiyay oo la hadlay shalay isla markaana uga hadlayay Iran inaysan u ogolaanaynin in shidaalka cidii ay rabtana ay ka iibiso cidii rabtana ay u diido iyo waliba Shiinaha ugu hanjabayay in 50% canshuur ah oo canshuur aad u weyn ay ku soo rogayaan haddii ay arkaan iyagoo hub ka iibinaya wadanka Iran. We're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like. If we catch them doing that, they get a 50% tariff, which is a staggering amount. haddaba mas'uuliyiinta Iran iyaguna arrintaasi waa ay ka jawaabeen horta waxaan arkayaa in Israa'iil iyo sidoo kale wadamada khaliijka arrintaasi ay soo dhaweeyeen isla markaana ay taageereen in madaxweyne Trump uu gabi ahaanba go'doomiyo marinka Hormuz madaxweyne Trump sidoo kale saaka qoraalkan ayuu soo qoray wuxuu yiri ciidamadii badda ee Iran badda hoostooda ayay yaalaan maraakiibtoodii oo waan burburin ilaa iyo 158 markab marka waxa uu sheegay hadda kuwa yar yar ayaa u haray waxana uu sheegay kuwaasi in aysan ahayn
kuwa wax badan nagu qaadanaya inaan burburino. Marka wuxuu yiri digniintan haddii ay maraakiibtoodu ay u hoggaansami waayaan, hadda wuxuu yiri go'doomintan aan saarayno marinka Hormuz waxa aan gabi ahaanba baabi'in doonaa inta yar ay u hartay ciidamadooda badda, inagoo isticmaalayna systemkii horey aan ugu isticmaalnay kooxaha daraagiska Mareykanka soo gelinayay oo xeebaha Caribbeanka ay dowladda Mareykanku doomaha ay ku beegsanaysa. Marka wuxuu yiri saasi ayaan u burburin doonaa. Hadda 98.2% wuxuu yiri daroogadii Mareykanka imaanaysay gabi ahaanba waa ay istaagtay oo dhinaca badda ka soo gelaya. Marka Iran wuxuu leeyahay isjira inta badan ciidamadeennii badda waan baabi'inay, inta yar ee idii harsan wuxuu yiri haddii hadda maraakiibteena joogta marinka Hormuz aad soo xabadaysaan oo wax ku soo tuurtaan, intaas idii harsan waa baabi'inayna ayuu yiri. Ninka ugu horeeya waa taliyaha ciidamada badda ee Iran, ninka la yiraahdo Admiral Shahram. Waxa uu ku tilmaamay hanjabaadda madaxweyne Trump oo ah inuu go'doominayo marinka Hormuz in ay tahay mid lagu qoslo isla markaana fani ah. Waxa uu sheegay in ay la socon doonaan dhaqdhaqaaqa waxa uu yiri ciidamada Mareykanka ah ee halkaasi jooga. Waxa uu yiri dhaqdhaqaaqooda si dhow ayaan ula socon doonaa. Afhayeen u hadlay sidoo kale ciidamada qalabka sida ee Iran, gaar ahaan garabka la yiraahdo Kataibul Anbiya, ayaa waxa uu ku tilmaamay go'doominta Mareykanku ay go'doominayaan marinka Hormuz inay tahay mid burcad badeednimo ah. Waxaana uu sheegay in Iran ay difaacayso xuquuqda sharciga ah ee leedahay, isla markaana sidoo kalena kheyraadkeeda waajibkooda sharcigana ay ku difaacayaan. Waxaana uu sheegay sidoo kale madax banaanida dhuleed iyo biyeed ee wadankaasi Iran in markastaba ay ilaalinayaan. Afhayeenka baarlamaanka ee dalka Iran, ninka la yiraahdo Mohammed Baqir Qalibaf, ayaa isaguna arrintan ka hadlay. Waxa uu ku tilmaamay hanjabaadda madaxweyne Trump in ay tahay sidoo kalena mid isaga dib ugu soo laaban doonta. Waxaana uu shacabka Mareykanka isagoo la hadlayay bartiisa X ayuu qoraalkan ku soo qoray. Waxa uu sheegay dhowaan shacabka Mareykanka waxaad arki doontaan shidaal $4 ilaa iyo $5 walow haddaba oo meelaha qaar intaasi uu ka badan yahay. Isla markaana sawirkan ayuu soo raaciyay in maapkan gas stationada u dhow aqalka cad qiimaha shidaalku uu ka joogo ayuu sidoo kale uu soo raaciyay. Waxaana uu xaqiijiyay in goor dhow ay arki doonaan dadka Mareykanka in shidaalkooda uu cirkaasi isku shareeri doono. Marka Iranna sidoo kale shacabka Mareykanka ayay leedahay arrintan kulay inaga nooma darne, idinka ayay idin daran tahay ee arka sida ay wax u jiraan. Marka halkaasi ayay xaaladdu maraysaa. Mareykankuna hadda waa dhaqan geliyay go'doomintii marinka Hormuz sida saldhigga dhexe ee Mareykanku ay xaqiijiyeen. Waxaana ay sheegeen amarkii madaxweynaha in ay fulinayaan. dhinaca kale madaxweyne Trump hadda waxa ay mar kale isku dhaceen Bob Leo XIV ama midka 14aad ee hogaamiya kaniisadda Vaticanka. Bobka waxaa lagu yaqaanay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka hadlayay dagaalada kii Gaza iyo sidoo kale midkan hadda Mareykanka iyo Israa'iil iyo Iran u dhaxeeya. Waxaana sidoo kale uu sheegay dadka gacmaha dhiigga ku leh in aan ducadooda aan la aqbalaynin ayuu xitaa sheegay. Marka Trump ayaa xalay waxa uu ku tilmaamay Bobka in aanba la dooran lahayn haddii isaga aysan ahaan lahayn madaxweyne Trump. waxaana Trump uu bartiisa True Socialka uu soo geliyay sawirkan oo lagu sameeyay AI, isla markaana The Christ the Healer oo uu soo dhigay bartiisa True Socialka. Waxaana uu leeyahay in uu iska dhigaya in isagu uuba yahayba nin Bob ah. Marka Trump waxa uu yiri Bobku waa nin aad ugu liita dhinaca dambiyada, macnaha in wax laga qabto dambiyada, isla markaana sidoo kalena waxa uu sidoo kale aad ugu liita dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda. Marka wuxuu yiri anigu taageere maba uu ihiba Bobka, sidaas ayuu yiri. He's a very liberal person and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapons so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Bobku isaguna arrintaasi waa uu ka jawaabay. Wuxuu yiri anigu horta maamulka Trump kama baqayo. Dhowr jeer ayuu xitaa wuxuu ka hadlay dadka soo galootiga inaan si xun loola dhaqmin markii masaafurinta daran uu Trump waday. Bobku markastaba dagaalada iyo dadka soo galootiga aad ayuu u difaacay. Marka Bobku wuxuu yiri anigu kama baqayo maamulka Trump, markastana nabad ayaan raadiyaa, siyaasina ma ihimana doonayo inaan Trump la doodo. Waxaanan doonayaa sidoo kale in aan sii wado inaan markasta ka hadlo sidii dagaalada loo joojin lahaa. My message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. I do not look at my role as being political, politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war. dhinaca kale Trump ma ahan wadanka gudihiisa oo kaliya
in uusan taageero ka haysan xitaa wadanka dibadiisa taageerada uu ku lahaa waa ay sii yaraanaysaa. wadanka Hungary nin waxaa hogaaminaya la yiraahdo Viktor Orban muddo 16 sano ah ilaa sanadkii 2010. Trump ninkaasi si aad ah ayay isku taageersanayeen. waxaa taageero sidoo kale uu ka haystay madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin maadaama uusan ka mid ahayn wadamada midowga Yurub ee ku taageeray Ukraine dagaalka ay Ruushka kula jiraan. xitaa waxaa jirtay ilaa iyo lacag 1 bilyan ka badan oo wadamada midowga Yurub ay doonayeen in ay deymiyaan dalka Ukraine in uu wadanka kaliya ee diiday oo ahaa 27 wadan inay u codayaan ahayd si lacagtaasi loo deymiyo. marka waa uu diiday. xiriirka uu la lahaa marka midowga Yurub dagaalkaasi Ukraine darteed ayuu ku burburay. marka waxaa la tartamay nin dhalinyaro ah oo maamulkiisa ka tirsanaan jiray oo la yiraahdo Peter Magyar waxaana uu ka tagay xisbiga Viktor Orban sanadkii 2024. haddaba doorashadii Sabtidii dhacday marka inta badan kuraastii baarlamaanka ayaa looga guuleystay xisbigii Viktor Orban oo ah nin 62 jir ah. 199 kursi ayay ahaayeen kuraasta baarlamaanka, 138 ayaa looga guuleystay. marka xisbiga waxaa la yiraahdaa uu ninkan dhalinyarada hogaamiyo Peter Magyar waxaa la yiraahdaa center right tisa ayaa la yiraahdaa. marka kuraastii inta badan markii uu helay waa uu qirtay in doorashadii looga adkaaday Viktor Orban. xitaa madaxweyne Trump toddobaadkii hore madaxweyne ku-xigeenkiisa ayuu u diray wadanka Hungary si uu ugu soo ololeeyo ninkan la yiraahdo Viktor Orban. laakiin arrintaasi waxba ma aysan tarin oo doorashadii waa looga adkaaday ninkan dhalinyarada ah ayaa uga adkaaday. marka Peter Magyar waxa uu xaqiijiyay inuu dib u soo celin doono xiriirkii Hungary iyo midowga Yurub ka dhaxeeyay xitaa madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky inuu la kulmi doono. marka Trump halkii saaxiib uu ku lahaa xitaa midowga Yurub hadda doorashadii waa looga adkaaday. Mareykankana doorasho ayaa soo socota Congress-ka dhamaadka sanadkan bisha November. waadna arkaysaan hadda dagaaladan shidaalkii oo kor u sii kacayo. xitaa waxaa haysata beeraleyda wadanka Mareykanka waxyaabaha lagu bacrimiyo beeraha marka la abuurayo in ay soo mari jireen intooda badan marinka Hormuz oo ay ku qaaliyoobeen. beeraleydana waxaa horey u saameeyay taariftii uu ku soo rogay wadamada caalamka madaxweyne Trump. marka taageerada dhinaca dadkii sidoo kalena waxaa muuqata hadda Kirishtanka ahaa oo kaniisadda Vaticanka in uu hadda isku sii dirayo oo boobkii la dagaalay. marka Trump dhinac kasta waxaa ka haysta cadaadis xoogan. doorashooyinka soo socdana waxaa la filayaa in uu guuldarrooyin kala kulmi doono Congress-ka sida hadda muuqata. maxaa yeelay dagaalka Iiraan weli ma uusan dhammaanin. hadda waa kan go'doominaya sidoo kale marinka Hormuz. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.